waa su'aal iska kaftaran saaxiibku weydiinna diyaar baan diyaar waa sax Soomaali baa taybka lacalla haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato wana anu yaman taasaan ka jeclaan lahaa inaad yaman ka dhalato jeclaan yamani waanay maxaad ku dooratay dadka ay waxaan taniyo yamani baa tayo oo ka yaabtay waa su'aal kaftara haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato dee nimadaa qurbaha Canada jeclaan America maxaad ku dooratay waxaan ku doortay dee nameero dhalisacayaal ku nool odogti iyo naageerooda cadaan Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa mar kale iyo muuqaal cusub maanta saad arkaysaan waxaan ku sugnahay suuqii magaalada Hargeysa waa barnaamij su'aalaha oo kaftara waxaan rajeynayaa in haddii aad channelka cusub tihiin aad subscribe ka saartaan aad garaysaan asxaabtiina la wadaagtaan waxaan rajeynayaa inay wax idin xiiso geliyaan inuu maanta soo duubi doono su'aalahan aad ku qosli doontaan daawasho wacan السلام عليكم كسدوا عليكم السلام والله وسؤال iska kaftan ku weydiinaa maanta su'aashuna waxa weeyaan aan magaalada dhalinyarada Hargeysa weydiinaa haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato haddii aan Soomaali ahaan waxa jeclaan lahaa ka dhasho carabta oo Nabi Maxamed ka soo jeeday alayhi salaatu wasalaam marka waxaad ku jeclaatay inaad carabta ka dhalato waxaan ku jeclaa carabta waa wadan islaama sidaa daraadeed islaamnimadu waxa kaliya adduunyada ugu qaalisan diinta islaamka okay way aad u mahadsantahay okay assalaamu calaykum ku soo dhawow assalaamu calaykum waraxmatullah maxaa la weydiisay su'aasha ku weydiinaa waxa weeyaan imka haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato cidnaba waddanba ma jeclaatay inaad ka dhalato cidna jeclay ma jirtaan waddankayga mooyaane waddankaaga ma jeedo had Soomaali baa taybka haddii lagu dhahaa waddan aad ka dhalan lahayd dooro maxaa dooran lahayd mama doortay waddankana ilaahay ga dhaliyaadana waa mahadsantahay soo dhawow sax calaykum assalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa su'aal kaftara haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato dee nimadaa qurbaha Canada jeclaan America maxaad ku dooratay waxaan ku doortay dee nameero dhalisacayaal ku nool odogti iyo naageerooda cadaan okay السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته وسؤال كفتنا haddii lacalla haddii aad Soomaali baa taybka haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato waxaan ku jeclaan lahaa Mareykanka marka waxaad ku dooratay waxa jooga dad kala mid ah sida midow cadaan noocaas oo kale marka habla yar wanaagsan iyo wax yar wanaagsan baa laga helayaa okay way saawa waa sataan عليكم السلام ورحمة الله وبركاته way ku soo dhawow su'aalan weydiinay dhalinyarta magaalada Hargeysa haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato horta marka hore ku dhawo TV-ga aad badmaysantihiin su'aal dadweynaha weyn dinsaan su'aasha ku noolan lahaa waxa weeyaan wadanka Sweden waddanka Sweden maxaad ku dooratay waxa ku doortay Sweden waxa jirta dad aan naqaano Soomaaliya markaas darteed baan dooran lahaa sax waa sat السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ku soo dhawow mo Somali media su'aashan ku weydiinaa waa su'aal iska kaftara Soomaali baa tahay lacalla haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato carabta maxaad ku dooratay waxaan ka jeclaan lahaa xagga iyo Sacuudiga waayo dhulka nabiga ku dhashay kula dhintay saa darteed u doortay okay saaxiib السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته okay waa mahadsantahay waa su'aal iska kaftaran saaxiibku weydiinaa diyaar baan diyaar waa sax Soomaali baa taybka lacalla haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato wana anu yaman taasaan ka jeclaan lahaa inaad yaman ka dhalato jeclaan yamani waanay maxaad ku dooratay dadka ay waxaan taniyo yamani baa tayo oo ka yaabtay okay way saawa waa sataan السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله way waxaan ku weydiinaa saaxiib lacalla haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato Kuwait baan niyo noqon lahaa aan ka dhalan lahaa waa sax maxaad ku jeclaatay awowgay baa ku dhintay niyo awowgaa Kuwait markaa awowgay baa xaqayga baan ka doonan lahaa okay way saaxiib السلام عليكم عليكم السلام saaxiib waxaan ku weydiinaa su'aal kaftara haddii aad Soomaali ahaan lahayn wadi ka jeclaan inaad ka dhalato haddii aan Soomaali ahaan lahayn Nigeria
nigeria marka waxaad ku dooratayna dee dadka madowga ee aan afkooda la fahmin baan ka dhalan lahaa madow way ku dooratay madow baan ku doortay asalaamu calaykum calaykum asalaam raxmatullah waa loo su-aal aan dadweynaha hargeysa weydiinay lacalla haddii aad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan inaad ka dhalato walaal lacalla haddii aan Soomaali ahayn waxaan jeclaan lahaa inaan ka dhasho Turkiga turkiga okay maxaad ku jeclaatay waxaan ku jeclaaday waa islaam buuxa oo qadiyadda islaamka uu difaaca waana dawladda qura islaamka in hadda tan awoodeeda ay tiirsan tahay xitaa Sacuudiga ka horeeya okay sax way asalaamu calaykum salaam okay waa su-aal aan weydiinay dadweynaha magaalada hargeysa lacalla haddii aad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan inaad ka dhalato waddankan aanu dhashay baan jeclaan lahaa iminkaan ku noolahay imika waddanka waad ku nooshay laakiin haddii lagu yidhaaho dooro waddan maxaad dooran lahayd Soomaaliland baan dooran lahaa Somaliland okay way waa maadsantay asalaamu calaykum calaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu okay waxaan ku weydiinaa su-aal aan dadweynaha hargeysa weydiino lacalla haddii aad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan inaad ka dhalato waddankan jeclaan lahaa inaan ka dhasho waxaan jeclaan lahaa sacuudiga waan jeclaan lahaa laakiinse bakistaan baan jeclaan lahaa inaan ka dhasho bakistan maxaad ku jeclaatay waxaan ku jeclaaday waxa weeyaan waddan marka la eegayo waddamada islaamka waddamada diinku dhaqanka ugu fiican habkii diinta ugu dhaqmaan aad jeclaysanaysa inaad ku dhex noolaato mar walba okay way sahay waa maasantay calaykum wacalaykum salaam waxaan ku weydiinaa su-aal aan dadweynaha hargeysa weydiino lacalla haddii aad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan inaad ka dhalato anigu waxaan dee jeclaan lahaa inaan ka dhasho Canada maxaad ku jeclaatay waxaan ku jeclaa dee waa dal qurux badan oo midda labaad shaxshax loo dadku badan iska jeclaystaan okay way waa maasanta sax asalaamu calaykum calaykum salaam waxaan ku weydiinaa saaxiib su-aal aan weydiino dadweynaha hargeysa lacalla haddii aad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan inaad ka dhalato waddankii doorta marka hore waa anugu Soomaaliland waanay Somaliland oo dhex jooga Itoobiya ku dhashay marka waddankaad jeclaan inaad ka dhalato waddankan ka jeclaan lahaa Sacuudi Arabia sacuudi carabiya maxaad ku dooratay waxaa ku dooratay maasha Allah tabaarkalla diinta oo taala barwaaqo okay way waa maasanta sax asalaamu calaykum calaykum asalaam okay waxaan ku weydiinaa su-aal aan weydiino dadweynaha hargeysa lacalla haddii aad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan inaad ka dhalato Soomaali dad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan Somaliland Somaliland waad joogtaa waddan kale wadda ka jeclaan inaad ka soo dhalato Ethiopia maxaad ku jeclaatay Ethiopia waa magaalo mustaqbalada okay imikana waxaan agtahay ku yaro da'yar soo dhow ondhowi haddaad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan inaad ka dhalato sidaa u dhalato inaad ka soo jeedo yani Somaliland Somaliland ma jecesha okay maxaad ku dooratay Somaliland dee waad waddankayga niguma dilisade okay waraxmatullaahi wabarakaatu waxaan ku weydiinaa su-aal aan weydiino dadweynaha hargeysa lacalla haddaad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan inaad ka dhalato yaa wadda ka jeclaan inaad ka dhalato Soomaali haddaan ahayn tee kulley waddamada carabta ma jeclaan lahaa tee waddamada carabeed wadankee tee ilaa macnii Sacuudiga iyo macnii Imaaraadka iyo magaranaysaa maxaad ku dooratayna tee waa dad muslimiin oo maadaama Soomaaliya dad muslimiin aan ahay tee dad muslimiin okay way maasantay asalaamu calaykum calaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu waxaan ku weydiinaa walaal su-aal aan weydiino dadweynaha magaalada hargeysa lacalla haddaad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan inaad ka dhalato maraykan maxaad ku dooratayna taniyo waa waddan shaqaa taalo qof walba oo shaqeeyo okay shaqada markaa ku dooratay ya shaqadaad ku dooratay okay saa waa maasantay asalaamu calaykum kusoo dhawo calaykum salaam ku dhawo waa barnaamijkii su-aalaha waxaan ku weydiinaa haddii aad soomaali ahaan lahayn wadda ka jeclaan inaad ka dhalato wallaahi waxaan ka dhalan lahaa waddanku nabigeena calayhi salaatu wasalaam barakaysanaa ka dhashay waxaan ka dhalan lahaa Sacuudiga sax markaa waxaad ku dooratay nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam nebi maxamed oo ummaddan hogaamiyey ayaan ku doortay calayhi salaatu wasalaam waa sax way waa maasanta sax